بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaan nooga barateenba waxaa maanta mar kale idin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal soo dhawaada waxaa iib ah dhul bannaan oo ah meesha hadda aan joogno dhulka iibka ah waxaa ku wareegsan derbigan aad hadda aragtaan waa geeskaas ilaa dhinacan kalena waa uu sii jiraa oo uu waddo weyn ka heystaa hadda waxaan joognaa dhulka qaybtiisa dambe ama derbiga gadaashiisa dhinacan waddo ayaa ka marta waddada kale ee weynta ah oo ah meesha albaabka uu ku leeyahay waa idin tuseenaa soo dhawaada walaalayaal waa garaash iib ah laakiin gudaha waxba kama dhisno sidaas awgeed waa iska dhul bannaan oo derbi uu ku wareegsan yahay walaalayaal dhulkaani wuxuu ku yaallaa meel aad iyo aad istiraatiiji u ah xagga waddooyinka xagga deegaanka iyo dhismayaasha iyo sida loo degan yahay sidoo kale wuxuu aad ugu dhow yahay badda waa dhul xeeb u dhow waxaan joognaa xaafadda Xaawo Casir waddadan hadda hormarta dhulka iibka ahna waxa ay toos u gashaa laamiga weyn ee suuqa Kaaraan ama laamiga degmada Kaaraan laamiga ayaa weli soo gaarin xitaa laamiga hooshiisa waa laga bilaabay kaliya waxaa ka dhiman laamiga madooba in la saaro shaqooyin kale oo dhanna waa laga qabtay waa markaa ka timaado degmada Kaaraan oo suuqa iyo soo dhex martid oo jidka laamiga uu dhamaado ayuu ku yaallaa garaashkan iibka ah waxa uu ka qabanayaa dhanka midig ama dhanka xeebta ayuu ka soo jeedaa soo dhawaada walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo dhulkaani waxa uu ku yaallaa magaalada muqdishona waxa uga sii yaallaa degmada Kaaraan oo ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn ee magaalada muqdisho degmo aad loo degan yahay degmooyinkii hore ee magaalada ka mid ah oo muddo fog la degay degmada Kaaraanna wuxuu uga sii yaallaa xaafadda Xaawo Casir garaashka waa kaas albaabkiisa dhinacaas waxaa uga dhagan meel bulokeeti baddina waa tanaa waa idin muuqataa xeebta waxaa ka xiga wax aad u kooban sidoo kale walaalayaal waxa uu ku dhow yahay dhulka loo yaqaano dhul iyo guri ama Marina Beach oo mashruuca dhismaha uu ka socdo marka dhulkan timaado toos ay u arki kartaa waddadan jayga ah ee laamiga dhinacana ka ahna waxay gashaa Gubadley ama degmada Gubadley laakiin dhulkaani waxa uu ka tirsan yahay degmada Kaaraan xaafadda Xaawo Casir waddada hore markay Gubadley dhaaftana waxay sii tagtaa ilaa iyo gobolada shabeellada dhexe ilaa gobolada dhexe waa waddadii aadaysay Hubyo ilaa Xaradheere ilaa dhankaas soo dhawaada walaalayaal inaad tilmaanta si fiican u fahanteen ayaa rajeynayaa waa meel deegaan ah ganacsi iyo mustaqbal fiican leh hala soo dhawaado qiimahana waa idin cajibi doonaa insha allahu tacaala balse qiimaha intaan u guda gelin walaalayaal haddii aan ka hadlo xagga cabirka dhulkan iibka wuxuu ku fadhiyaa cabir ah 40 lagu dhuftay 20 ama koronta barfinti dhinacan waddada ah ama derbi geeskan ah waxa uu ka yahay 40 mitir wejiga hore ama waddada weyn ee laamigana waxa uu ka haystaa 20 mitir waa laba boos oo waaweyn oo midkiiba uu yahay finti barfinti ama 20 lagu dhuftay 20 sidaas ayuu cabirku wuxuu ku noqday dhinac 40 ah ama laba dhinac 40 ah iyo laba dhinac 20 ah waa balac oo 20 mitir ah iyo dhirir oo ah 40 mitir derbiga u jeedaan inta uu jeedo
soo dhawaada waa intaasoo boos haddii si kale loo dhigo maxaa yeelay waxaa laga dhigi karaa 4 qayb ama 4 guri oo kiiba uu yahay 20 lagu dhiftay 10 wejiga hore waa aragtaan siduu uga weyn yahay wada laami ah oo howshiisa ay socotana waa uu saaran yahay hala soo dhawaado walaalayaal haddii aan u gudbo xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo walaalayaal garaashkaana waxaa lagu rabaa 90,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waa macdalaal iyo heshiis qiimaha waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah baa la idinka dhimaaya insha Allah taala beec meesha ka bilowdo kuma dhamaado runtiina qiimaha aad ay ugu qalmaa tusaale 4 haddii loo qaybiyo على نسكي أما قيبتي وهل في اللي كوقا بنيسا وحي قيمة هذا نقنيسا 20 إلى 2 إلى 5 أو دولار أو كلية دول كوارك تنسدو عمرين هاي هدانا وابريما بوس وحاكوسي دير وعمال هرمار سمانيسا ورسمياش يقوليها قروح البدن لأكوسو بدن عيان حيبتي أدو أو دالحيس نقن كرتا سو دوادا ولا للكفة إيديستا 90,000 أو دولار كمريكان كهكلية أيا لغو ربا gorgorna waa ay ka furan tahay walaalayaal haddii aad maqantihiin waa nala soo xiriiri kartaan dhanka WhatsApp-ka faahfaahin buuxda ayaa idinka siinayna kadibna qof wakiil ayaa soo dirsanaysaan si qiimaha la idinkaga dhimo soo dhawaada walaalayaal haddii aan ka hadlo ama aan u gudbo xagga wadooyinka dhulkan iibka sida aragtaan waa laba jidle wada weyn iyo wada kale oo dhinac ka marta ayuu leeyahay oo iyadana weyn haddii aan u gudbo xagga jihada iyo dhanka oo u jeedo walaalayaal dhulkaani waa laba jidle galbeed ujeed iyo waqooyi ujeed ah wadadan waxay ka martaa dhanka galbeed oo aada xeebta wadada kale ee laamiga ku dhacaysana waxay ka martaa dhanka waqooyi walaalayaal haddii aan ka hadlo xagga dukumentiga dhulkan iibka ah waxa uu leeyahay dukumenti saxan oo dhammaystiran kaas oo ah rasiid iyo sawarloog Maxamed Siyaad Barre ah oo original ah sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah way u dhameystiran yihiin sida canshuuraha iyo wixii la midka ah soo dhawaada walaalayaal waa dhul qiimihiisa macquul yahay dhul weyn ah waxay ka dhisan yihiin meel istiraatiiji ah ku yaala dukumentigana uu yahay Maxamed Siyaad Barre dukumentiyada asalka ahay ayuu leeyahay kama aysan dhumin warqadaha dhan way u dhameystiran yihiin rasiid sabarloog walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaan diyaar u nahay inaan dukumentiga idin geyno nootayadii aad dalbataan si la idinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga insha Allah taala haddii aad geometry dalbataan waa iska keeni kartaan waa la soo dhaweynayaa waxaan mar walba ku dadaalnaa in aan idin soo gudbino dhulalka iyo guryaha dukumentiyada ay saxan yihiin aan idinka iibino waxaad isku halay kartaan oo ku nacfi doontaan insha Allah taala astaanteena waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha dukumentigana waa priority-geena koobaad ama meesha ugu horeysa aan ka fiirino hala soo dhawaada walaalayaal laga faa'iideysto dhulkan iyo dhulal kale oo badan baa idin haynaa walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidaan oo kale ayaan idinku beec geenaynaa insha Allah taala haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira waa idin heleynaa waxa la soo geliyo wax kooban kuwa lahaayo kale ayaa ka sii badan Dallas ugu imaaw dhulal dukumentiyada ay saxan yihiin sida rabtiin la idinku shaqeeyo ugu imaada si daacadnimo oo hufnaan ay ku jirto oo musuqmaasuq lahayn ugu imaada ugu dambeyntii walaalayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambalaalkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka idin soo gelinayno insha Allah taala sidoo kale Facebook-na follow inaga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.